الرحمن الرحيم كسر هذا برنامج كدعوين كدنيا وقياب كبدن برنامج كان وحى أعلى إذن سوق بيه إسلام أركان إذن سعودية أنا جوا أحمد تاجر قال بدأ وبرنامج كدعوين كوقياب كبدن دنيا وحى كمده جابت دجن حافظ وولويج كونفور برمجان أو سيكريس إسقاطه تدور قد طبعا تضبط جابدا سمحه كل فين الصوت ورتو barnaamijka dhacdooyinka dunida ee raadiyo Samadoon ayaad ku maqli doontaan qodobka labaad ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ee raadiyo Samadoon ku maqli doontaan waxa kamid ah nin sagootiyay meyd isla markaana daqiiqada dabadeed asagii la sagootiyay qaabku ay u sagootiyay meydka sidee buu asna loo sagootiyay barnaamijka dhacdooyinka dunida ee raadiyo Samadoon ayaa caawa qayb ka tahay nin ku nool gobolka California ee wadanka Mareykanka ayaa la xiray asagoo xilligan la soo qabanay ku guda jiray karinta hilib bisadeed halkii uu karinayay muxuu ka sameyn rabay muxuu ka damacsanaa barnaamijka dhacdooyinka dunida ee raadiyo Samadoon ayaa caawa qayb ka tahay qodobadaas iyo qodobo kaleba waxa barnaamijkeena dhacdooyinka aad uga bogan doontaan ku soo dhawaada nin ayaa isagoo sagootinaya meyd ayaa isna ku dul dhintay qabrigii ninka uu sagootinay lagu duugayay boqolaal qof oo kamid ah dadka xaafada Asanaad ee waqooyiga Sacuudi Carabiya ayaa hal mar afka gacanta saaray markii uu qabrigii ku dul dhintay oday 70 jir ah xil uu ka qayb galay aaska qof dhintay majalada Riyadh ee Sacuudi Carabiya ayaa sheegtay in xilligii lagu guda jiray aaska ninkani ay si kaliis ah loogu soo booday dabeetana uu ku dul dhacay qabrigii waxaana markii dambe ay kor yimaadeen uu ahaa mid ay naftu ka baxday dadkii aaska ku jira ayaaba aad u argagaxay geerida sida la yaab kale u dhacday waxaana isla markiiba bilaabeen in aas kale u sameeyaan ninkan 70 jirka ah kadib markii ay dhameeyeen aaskii ninkii kale qodobka labaad ee aanu ku soo qaadan doona caawa waxa weeye dhacdo la yaab leh oo ka dhacday xaafada Woolwich koonfur bari magaalada London kadib markii gabar aad u da'yar ay iska soo dusay dabaqa 17 gabadhaasi ayaa waxay jawaab kulul oo kaliisa qaadatay kadib markii booliiska ay ku wargeliyeen inay si degdeg ah isku soo dhiibto gabadhani ayaa waxa sanadkii hore xabsi laga soo daayay iyadoo lagu xukumay in aysan banaanka u bixi karin ama xabsi guri gabadhii dhagjala qomayso in hadalka booliiska waxayna u guda gashay inay banaanada iska aado isla markaana ay asxaabteedii ay raacdo booliiskii ayaa ku daba jiray raadinta gabadhaasi ayaa waxay soo ogaadeen inay joogto xaafada Woolwich oo ahayd meeshii ay ku nafweeday iyada daraad subaxdii ayaa booliiska waxay si kaliis ugu soo galeen iyada oo ku dhumaarinaysa qol yar iyada saaxiibkeed kadib markii ay aragtay booliiska waxay door biday inay cagaha wax ka daydo
iyadoo usii carartay xagga dabaqada si ay booliiska u tusto inaanay isdhiibin, iyadoo ku dhawaaqaysa sida ay noo sheegeen dadka daris la ahaa. Hidaaya ama waan istuurayaa, balse booliiskii wuxuu isku dayay inay la hadlaan ama ay kusoo dhawaadaan si ay usoo qabtaan. nasiib darro waxay gabadha iska tuurtay daaqadii, taasoo ku noqotay booliiskii fajac iyo makaag. dunida aynu ku noolnahay ayaa waxaa ka dhaca waxyaaba aad u la yaab leh, taasi oo loo baahan yahay in laga tusaale qaato islamarkaana aan lagu dayan falalka caynkaani oo kale ah. qodobka kale ee barnaamijkeena dhacdooyinka dunida aan kusoo qaadanayna waxaa weeye qodobka labaad ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ee noocaha kusoo qaadanayna waxaa weeye nin ayaa gacantii lagu soo dhigay kaasi waqtigaasi qabanayay ama kelinayay hilib bisadeed. booliiska gobolka California ee waddanka Mareykanka ayaa xiray nin lagu helay dambi ah inuu cunayay oo uu karsanayay hilib bisad rabayo ahayd Jason Louis Wilmer oo 36 jir ah, iyadoo laga soo qabtay xaafadda Bakersfield oo ku taala nawaaxiga magaalada Old Bale ee gobolka California. dariska ayaa la sheegay inay maqleen qaylada bisada oo ninka gowracayay, waxaana kadibna ku wargeliyeen booliiska. ciidanka ayaa waxaa si kaliisa gurigii u soo galay. ninkan ayaa waxaa la soo taagay xabsi, taasi oo lagu cadeeyay ama indhihiisii lagu arkay isagoo karinayay hilibka bisada. afhayeenka booliiska Bay Brut ayaa sheegay inuusan weli arkin midan oo kale weligiisna lama oga sababta uu ninkani falkaani ula kacay iyo duruufta ku qasabtay in uu hilib bisadeed kariyo. intaan barnaamijka dhacdooyinka dunida ee aad caawa kala socoteen radio Samadoon. haddaba tan iyo kulantideena dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.